الله الرحمن الرحيم خيارتا شرفت له مدن يالي مروين كسر دوادا برنامج كنبض النرورة آدي أدوم هالسنتين كسوق يبقلك كسوق يبقشين ما كعدو دارنا إلى برنامج كوقت أو طلق على إنه نوبل لعبني برنامج كأنت عنا باللعبين محرر إن يرأو إسبريدا إلى سكيم برا لبضع قف لمعناها برنامج كان ويستاجي قف كود حالي هذا يوسف شيخ عمر دجانها وحد دقيقة هاي وضن كأستراليا هو أقونتي سوا هاد PhD هو كقاطي جامعة لاتروب يونيفرسيتي هو أنت بدن كهلا يستحقل كبلشدة arrimahaas ayuu maaragtay muddo dheer maaragtay u baarayay masterkiisana wuxuu ku soo qaatay jaamacad waddanka Malaysia ku taala education management ayuuna ku soo qaatay hadda ka hor wuxuu qayb ka ahaa asaasaha urur dhalinyaro oo ka jiray waddanka Australia muddo badanna uu ka shaqaynayay intaasaan uga baxayaa Khadija Usman iyaduna waa PhD holder waxay ka qaadatay jaamacadda UCL ku taala waddanka Ingiriiska waxay baratay cilmiga maaragtay sayniska gaar ahaan baaritaan waxay ku sameysay in drug discovery waxa loo yaqaano waxay marka iyaduna ay barnaamijkan la wadaa saygeeda Yusuf marka barnaamijka inta kale kulay waan guda gali doonaa لكن waxaan ku bilaabaynaa aayadaha quraanka kariimka ah waxaan noo akhrin doonaa Abdullah Macalin Ibrahim in Abdullah soo dhawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا صدق الله العظيم markan waxaan isaykin kala baxaya Khadija iyo Yusuf iyagana ku soo wareejinaya maaragtay hadalka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آديات بعد ما تسافي وقتك النقارة أنا ضم صبرتين. فملتي أتصلت هي قيسسكيني يعرفتيني هي ما يبي شقاي كني أنا أتصلتين. نولد درين وداكتان مشروع نانجي خديجة متقانا عن وضنا مكانتي أقدر لكم هذا قلبي ذلك هذا قينا. وحاب يصدقنا بفقف inaan barnaamijkan wala wadaagno oo aan ku qancino laakiin dad inta la eego kala hela ama ka sii badan effortka iyo juhdiga aad gelinaysaa hal qof yaa waxaad gelinaysaa dad badan marka waqti baa ku kaydsamaya anigu shaqo ahaan waxaan ahay researcher cilmi baare وبجوب iyo waxa la yiraahdo wala social integration yaa sameeyo Khadija soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أيام سنتين وقتي نقالي أنا سنتين. أنا جوها أنا ساينتست bachelor في biomedical science master في microbiology. كمان كده PhD وأنا drug discovery. أنا قسمي إنجليزي program كان أنا يسمع ونا وكبرين تنبته. waxaan isweydiinaynaa barnaamijkan sababtii aan aniga Khadija u bilownay waxaan malayn qof kasta oo Soomaali ah oo asalkiisu Soomaali yahay Soomaaliya ka soo jeedo ama meel kale ha deganaado dareenkiisa inuu ku wan yahay Soomaaliya inay nabad u baahan tahay dhalinyarada iskuulka markaan u tagnaa ama carruurta waxaan dhahnaa Soomaaliya dhibka ugu badan oo haysta muxuu yahay waxay dhahaan colaad iyo dagaal hadeen waxaan weydiinaa maxaa lagu daweeyaa waxay dhahaan nabad waxaan weydiinaa dhibka haysta maxaa ka mid oo kale waxay dhahaan aqoon yari iyo jahli nin waxaan weydiinaa maxaa lagu daweeyaa waxay dhahaan aqoon iyo barasho waxaan weydiinaa maxaa lagu daweeyaa waxa kale oo dhib oo jira waxay dhahaan cadaalad xumo maxaa lagu daweeyaa cadaalad maxaa kale oo dhib oo jira maamul xumo maxaa lagu daweeyaa maamul wanaag marka waa dareen qof kasta oo Soomaali ma taqaana uu qabo
qofba siga u fuliyaa oo mataqaana uga qayb qaataa marka dagaalkii sokeeye dhib badan buu u keenay ummadda Soomaaliyeed way kala irowday waxaa la yiraahdaa confidence-gii baa hoos u dhacay waxaa la yiraahdaa community spirit ama isku xirnaanta iyo dareen wadaagga qiimaha lahaa Soomaalida lagu yaqaanaa hoos mataqaana u dhacay shakigii baa mataqaana batay wax kasta oo colaad iyo dagaal iyo dhibaato keena yaa xoogaystay wax kasta oo wanaag iyo nabad keenana mataqaana wuu yaraaday marka waxaanu dareennay inay aad iyo aad muhiim u tahay in loo istaago dad badanna way u istaageen marka anagu dhinacanagan isaga mataqaana baynay 2010 يا أنا خديجة ملكي شكان سجن ناس عدي سكورسي كي هذا أنا أقول لك رجالا أنا وحني برنامج كان سنة تبعي أنا يقبل لونه أنا بقول لك وش نبغى وحني سكورسي دمات كي لبدا كي طبعا كي دمات كذا لكن بالله وجهه عمل حدا marka kisto lacagan aruuriyay arday baan ahaa doctorate ka sameeya waan rabay inaan ku aqal galno marka khadiija la hadlay waxaan yiri barnaamijkaas aan rabaa inaan aado itale lagu qaban doono oo nabadda mataqaana ka hadlaya barnaamijkuna wuxuu ahaa 7,000 ana waxaan haystay 10,000 waqti hore aan aruuriyay arday waad iska garanaysaa qaraabo lacag sootir lagu dhagan yahay aqal galkiina waa noo qorshaysan yahay sanadka aakhirkiisa dhowr bilood ka dhima marka waxaan idin maxaan sameeyaa trainkan halka bil soconaya oo 7,000 ama isaga baaqdaa mise kistiyareedeen aruuriyay baan ku bixiyaa marka waxay tiri Allah faxan ha uga harin ku bixi marka 5 baan aan ku bixinay 2,000 kuna jaamacadda ay siisay kuna qolayda migrant resource center ay siiyay marka ficil ahaan markaas uu soo bilowday leen markaan iskuursanay khadiija shiraayi u soo wareegtay wixii ugu horeeyay oo qabanay wuxuu ahaa inaanu ka hadalno nabadda kursooyin inaanu mataqaana qaadano weekendiyada waxa la yiraahdo social healing soo daweynta bulshada dhinaca damiirka iyo qalbiga iyo dareenka inaanu mataqaana qaadano to the point khadiija iyadoo 9 bilood mataqaana uur ah aan habeena dhaxaynay babyga noo dhashay iyadoo 2 bilood aan wiiga mataqaana ku soo maqnaanaynay marka probably wixii ugu badnaa oo noo geystay arrimahaas ayaa kamid ah horta iyo su-aal ayuu mahadsan yahay siduu u sheegay waxay soo bilaabatay programka annagu iskursani ka hor maadaama ummad Soomaaliyeed aan nahay dhibaatada meel kasta ayay naga taabatay waxaana raadinayna mar walba dhib kugu dhaco markaas unbaa xal raadaysaa haddaana dhib jirin xal lama raadiyo marka waxyaabaha igu yaabka badnaa oo aad ii sii dhiirigeliyay waxay ka mid ahayd 2011 anigoo u tagay China inaan conference ka qayb galo hal bil ayaan joogay oo training arday kale aan siinayay marka dadka Chinese-ka ah wax aad interest ma ugu ahayn inay ogaadaan cilmi baarista aan sameynayay waxay aad u xiiseynayeen qofkan xijaabka xiran ee kalarka madowga ah meesha uu ka imaaday maxaa yeelay jaamacadda aan ku bixinayay wax madow ah maysan joogin marka waxay u qaadatay muddo 15 daqiiqo inaan maapkii sawiro aan Soomaaliya waxa ay tahay East Africa Horn of Africa inaan sharxo marka magacii Soomaaliga soo dhawaaday oo magacii Soomaaliga sheegay ilaahay waan naqaanaa meesha pirateska joogo meesha la isku qarxiyo meesha gaajada taalo marka anigoo rabay waxayga inaan gudbiyo xogaa waxaan noqday hoos inay niyadeyda u dhacday laakiin haddana waxaan iska doonay dadnimo waxaan dhahay waa runtiina waxaa sheegaysaan oo midiyaha uu sheegay laakiin hadda waxaa idin ag taagan gabar xijaabka xiran waxa idinka meesha aad ku haysaan camal ku haysa oo cilmigiina ah haddana British passport wadata diinteedina haysata bal image-ka aad haysataan bal kan kalena ku dara marka taas waxay macnaha keenaysaa image-kana laga haysto ee aad u foosho xun haddii dadka qurbaha jooga ay noqoto haddii dadka inta jooga ay noqoto magac wanaagsanna lagama haysto marka dhiirigelintaas xaggeeda ah ayaa ay gelisay bal waxaana laga sheegaya ee foosho xun ee ummadii naga arkaan sideen u bedelnaa oo aan u raadinaa image-kaas ka quruxda badan okay iminkana waxaan ka hadlaynaa projectigan aan wadna ama barnaamijkan ahdaaftiisa guud iyo ulajeedooyinkiisa mataqaanaa guud waxaanu adeegsanaa magaca Somali Youth Peace Project mashruuca nabadeynta dhalinyarada Soomaaliyeed sababta waxa weeye hadafka iyaga ugu weyn waa dhalinyarada oo mustaqbalkii mataqaanaa ummadda ah
title ahaan waxaan adeegsanaa oon shahaadada ku bixinaa magaca la yidhahda Global Reconciliation waa urur caana Australia mataqaana ka jira waxa bas ay noo fargalayaan ay nasiyaan waxa weeye magacaas ay nacaariyeeyeen warkiisaan uga soo qaadanay ayagana waxaan u nahay la taliyaal marka shahaadadan ardayda ku siinaa علامة Somali Youth Peace Project S waa guduud hida ugu dambeysana waa green maxay ka dhigan tahay S red marxaladda maanta lagu jiro red waxay had iyo jeer u taagan tahay khudurada iyo waxa dangerous kama taqaana ah oo dhibaatada ah ay u taagan tahay marka waxaan leeyahay ku haynaa inaan move garayno dhalinyarada Soomaaliyeed from red to the green marka in between waxa ku jira y oo red xoog badan ma ah kisto yellow waa guduud khafiifiyay boqolkiiba 80 90 xaaladdu markay khatar tahay sida hadda dhalinteena ay ku sugan tahay risk ay u tahay ama piracy ama xagjirnimo ama wax kasta oo dhibaato ah waa red waa then waxaan sileeyahay in 5 years insha Allah la move gareeyo oo boqolkiiba 60 55 khuduradu ma taqaanaa hoos u dhacday noqotay yellow then ay dhinaca kale u move gareyso boqolkiiba 50-40 ma taqaanaa khudurada yaraato to the point marka ugu dambaysa boqolkiiba 80 wanaag iyo shaqada iyo nabadgelyada ay noqoto ahdaafta ugu badan aan higsanayna waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed la soo celiyo wax la yiraahdo kalsoonideedii iyo hope ma taqaanaa rajadeedii in ma taqaanaa la soo celiyo confidence inay isku kalsoonaato community spirit and solidarity ruuxdii iyo dareenkii wadaninimo iyo ummadeed in mataqaana la soo celiyo sidoo kale alla waxa uu bini aadamka siiyey oo potentialka ah oo ah inuu wax baran karo wax kasta uu gaari karo inay awood u yeelato ummadeenu gaar ahaan dhalinyaradu mataqaana in ay mataqaana gaaraan in aan helno Soomaali cusub kuma fikiro rebuilding Soomaaliya sidii ahaan jirtay waa wax tagay way mana noqonayso Soomaaliya si ahaan jirtay never ever kuma noqonayso anigu saan 20 sano ahaa kuma noqonayo waa mustaxiil way inay taadaydu yaraato waa mustaxiil tintaydu inay madoobato waa mustaxiil inay tiniga soo baxdo waa mustaxiil marka dadka yiraahdo Soomaaliya rebuilding weedha guud ahaan waa laga fiican yahay building new Soomaaliya Soomaali cusub in mataqaana la sameeyo oo more diverse ah oo awood mataqaana leh aqoon leh ka fiican sidii hore Soomaali oo peaceful ah ee niyada ku haynaa inay dhalato ay timaado cohesive ah is ixtiraamta isku mataqaana xiran oo harmonious ah Soomaali oo creative ah hal abuur iyo mataqaana curin leh dhinaca dhaqaalaha ha noqoto dhinaca cilmiga ha noqoto dhinaca siyaasadda ha noqoto dad wax curiya inaan mataqaana yeelano Somali prosperous society Soomaali oo qani ah inay timaado waxaan tagay Finland sanadkii hore marka waxaa la ii sheegay Finland 100 sano ka hor dagaalkii koowaad ee adduunka inuu ahaa wadamada cudurkan la yiraahdo TB-da ama qaaxada dhulka ay dhigtay oo ugu xumaa waagaas arrintii qeyr ay ku abuurtay wadanka Finland la yiraahdo to the point imika uu noqday 100 sano ka bacdi wadanka ugu fiican ee qaaxada daaweeyay ee la dagaalama odayaashii Soomaalida ku arkay Helsinki waxay sheegeen TB-da Soomaalida si looga dabargooyo macallimiinta iyo dhakhaatiirta Finland yaa tababari jiray annaga hadda maxaan caan ku nahay Soomaalida waxaan ku nahay failed state balance fashilmay nabadgelyo xumo corruption waxa la yiraahdo incompetence tayo xumo waxaasoo dhan baana lagu sifeeyaa marka waxaan islaahay arrintaas intay qeyr inagu abuurto oon aad iyo aad u dadaalo dhinac kasta ka dadaalo kiiska kale inaan tagno ay Soomaaliya noqoto meel nabad loo soo kaadsado nabadda lagu daraasayo barwaaqo ah awood leh cilmi leh aqoon leh waan huba inay niyad idinkaga wada jirto laakiin qofba siba u raadinaya marka anagu weygan ayaan dooranay anaga hadda marka insha Allah maxaa rabnaa hadda wuxuu ka hadlay missionkeena muxuu noqon doonaa waxaan rabnaa programkan aan bilaabnay haddii la yiraahdo oo training ku saabsan inuu conflict transformation inuu noqdo conflict inta la nool yahay isku hor imaansho ama isku dhac uu jiri doonaa laakiin haddii la maareeyo oo la yaqaano sidii loo xalin lahaa hadduu khilaafaad imaado meesha lagu darsayni lahaa waxaan rabnaa haddii la yiraahdo inuu dialogue jiro dadka inay wada hadlaan ummadda hadday wada hadlaan laga soo bilaabo family ilaa iyo ay noqoto maxaa la society hadduu wada hadal jiro
waxaan u malaynaynaa inuu xal heli doono reconciliation in dadkii dhibta sheeganaya in la isku soo celiyo ay wada hadlaan ay reconcile sameeyaan storytelling in sheeko xariir dadka inay sheekooyinkii dhacdooyinkii soo maray tii xumaantii ahayd tii nabadii ahayd tii barwaaqadii ahayd whatever oo dadka Soomaali ay u lahaan jiray inay storytelling inaan sameeyna inay sheeko xariir iyo in la sameeyo specialist library nabadda waqti nabad hadda waan bilawnay wixii buwaaq oo nabadda ka sheekeynaya wadamada dagaalka hore u soo maray Liberia Rwanda all the wadamadan dhan oo dagaalada soo mareen waxyaabihii ay ku survive gareeyeen buugtii laga qorayna inaan aruurino culture specific approach dhaqan maadaama aan leenahay oo ay ka mid yihiin gabayaasha buraanburka maamaahyada inaan la xiriirino dhaqankeeni iyo religious teaching diinteena waxa ay ka qabto nabadda ayado badan baa ku soo aruuray xadiisyo badan baa jira in ayada laftigeeda aan ku xiriirino aan kula xirno dhaqankeena iyo inaan conducting research in la sameeyo research lagu daraasaynayo macluumaad lagu aruurinayo iyo nabadda wixii kobcinayo inaan kula xiriirino researchkaas at the same time inaan sameyno training research iyo training labadaba. Okay, good. Khadija waxay ka hadashay methodology-ga ama strategy-dii aan vision-ka ku fulinahay ee wadana ka hadashay. Okay, the framework of the project. barnaamijkan aan wadano waxa uu ah tiirar ama waxa la yiraahdo framework todobada qodob ee soo socda. Peace capacity building dhisida kaabayaasha nabadda. Capacity skill ma aha skill waa technical. Capacity carabiga waxay ku noqon maqdira af Soomaaliga awoodda nabadda sida loo dhisi lahaa. Marka peace values nabadda waxa value-geeda dadkeenu inay aaminaan. marka nabadda value-geeda muxuu yahay ma haddaan ummad laga helin aan nabadda helin isjacayl ummad haddaan isjacayl laga helin never ummad ma noqoto macna ummadeedna ma yeelato ummadda haddaan waxa la yiraahdo respect inay is ixtiraamaan haddaan laga helin ummad ma noqoto sense of justice cadaalad haddaan laga helin ummad ma noqoto nabadna ma keento tolerance iyo accommodation acceptance haddayna dadku is aqbalanin oo aynan is qaadan fikradahooda kala gedsanna ummad mataqaanaa ma ay noqdaan personal transformation waa qayb ka mid a trainingka mujallada mid ka mid a weeye muxuu noqon karaa personal transformation qofka Soomaaliga inuu gadaal isugu noqdo waa inuu fikiraa waa inuu isla tashadaa horta wax la yiraahdo inner dialogue qofku waa inuu sameeyo habeenkii ama subaxii probably would prefer salaada subax marka la tukado ama habeenkii marka sariirta la tago qofku inuu naftiisa la sheekaysto inta la egu yahay qofka wax soo saar la qiimo leh sidoo bini'aadamku ula dhaqmo ciyuurihiisa inuu ogaado iyo wanaagiisa si positive qofku inuu fikiro waxaan nagu badan haddii wax la wada waxaan reactionary society arrinta day dhacdo inta badan dhinac baa laga eegaa marka dhinac wanaagsan laga eego si fiican mataqaanaa in loo fikiro qofka Soomaaliga inuu noqdo creative qofka mataqaanaa hal abuur la in mataqaanaa uu noqdo way badan yihiin wax soo hoosgalaya positive social engagement skills qofku inuu yeesho skillada noocaasa oo sida bini'aadamka loola xiriiro maxaa ka mid ah effective communication oo kale tusaale maan soo qaadanaya markaan wada xiriirayna ama wada hadlayno hadalkeenu inuu noqdo very effective and positive communication nin oday ah iyo caruurtiisa wuxuu ka soo qaaday Australia gobolada Soomaaliya meel ka mid ah keenay marka wiilkiisa wuxuu ku dhashay Australia hooyadii aabuna dad aqoon leh ahaayeen waxa loo keenay eedadiis iyo mataqaana familkii odaygana waa soo raacay marka wuxuu maqlay wiilkii eedada oranaysa of course aabahna wuu yiraahdaa laakiin eedadii oranaysa in kaare kugu dhacday waxa ay keen caruurteeda in kaare kugu dhacday marka cunugii wiilkii uu fikiray wax fiican buu u maleeyay maalinka wuxuu yiri eedo in kaare kugu dhacday ko biyaysay and then waa cunugii xagga mataqaana canaan eedadiis iyo aabihiisa markaas wuxuu sorry eedo hadda jira ku tiraahdo caruurta waxaan u meeleeyay please inay ka dhigan tahay u meeleeyay buu yiri marka tusaale ma soo qaadanaya hadalada noocaas way nagu badan yihiin caruurta waxa la yiraahdaa damiiho wiilkii la dhiirigelinaha ama gabadha dhaqana waxaan leenahay somehow encouragement aan lahayn inspiration aan mataqaana keenayn
probably noloshii qalafsanayd ee dagaalka iyo durwaaga xoolaha kala dhacaan iyo geela la kala dhici jiray meeshaas sal ku haysaa laakiin wax kasta waa la bedeli karaa marka waxaa muhiima inaynu ogaano weaknesska aan leenahay in aynu mataqaanaa bedelo marka positive engagement waa muhim collaboration inaynu yeelano dhaqan oo ah collaboration and cooperation and leadership qofka Soomaaliga inuu sidoo dadka ula dhaqmo xuduudda uu leeyahay qofka ixtiraamka cultural sensitivities waxa la yiraahdo inaad Khadija waxaaskayga hadi jaro inaan ka fikiraa saan u ilaalino dareenkeeda ayadana iyaga fikirto si nolosha ay hore ugu socoto laakiin haday noqoto mid dib ku taaga odayga iyo aabihi isku qayliyaan waa ilmihina waxa uu arkayo anyway marka kaasna waa training noo soconaya mataqaana saacad 2 saacadood inclusive mataqaana citizenship muwaadana oo saxan in la helo oo caruurta Soomaalida iyo dhalinyarada in la baro xuquuq waxay u leeyihiin iyo wixii waajibaad lagu leeyahay ummadda Soomaaliyeed meeshay degtay iyo dhulka Soomaaliyeed in la baro deegaan ahaan geography ahaan taariikh ahaan in la baro dhaqankii iyo gabayadii iyo suugaantii iyo diinta si dhiiba inay u bartaan si ay u noqdaan dad muwaadiniin ah iminka waxaad arkaysaa caruur badan oo iskuulaadka ka baxay gaar ahaan jamhuuriyadda mataqaana ka baxay oo mataqaana waxaad arkaysaa curriculum waxaa loo dhigaa hay'adda international NGO iyo iskuulla ay fangareeyaan curriculumkii wadamada laga soo qaatay marka caruurta af Soomaali way ku hadli dhalintay laakiin waxay yaqaanaan suugaanta iyo gabayada mataqaana canta iyo imrul qays kuwii Soomaalida ma yaqaanaan suugaanta Soomaalida ma yaqaanaan dhulkii Soomaalida ma yaqaanaan Somali identity male andan qofkaasi waa madaw yahay afkii uu ku hadlay laakiin ficlan is not a Somali citizen marka in la abuuro muwaadana runtii waa muhim waxa aad dhaqanka Soomaalida ugu badan waxa la yiraahdo haybsooc hadii boqolkiiba 40 ama 30 ummadaada kamid ah ay arkaan inaynan Soomaali dhab ahayn ama aynan la sinayn kuwa kale ama dumarka xitaa ay arkayaan patriarchal society ummad oo niman mataqaana ay u taliyaan bas ay tahay sinaan aysan jirin ama rag iyo dumarka waxaan ka wada way jiraan role difference oo rageed markuu Ilaahay uu kala siiyay laakiin waxyaalaha ay ka sameeyeen wuu jiraan marka haddii sinaan oo bini'aadanimo aysan jirinna muwaadana sax ama ay nimanayso parenting program in la sameeyo oo positive sida caruurta mataqaana loo tarbiyeeyo oo la tashado hooyada aabuhu wada tashadaan very positive attitude in la abuuro dialogue social healing and reconciliation dhaqan wada hadal in la abuuro waxaa la yiraahdaa dialogue haddii jiro the problem resolve itself it does not require to be resolved haddii wada hadal uu jiro madmadowgu tirshadu ka baxa adi u fiirso qof aad madmadow in dhaxeeyo ama shaki aad kala qabtaan waxaad isku daydaa intaad marti qaado kofi lacab 2-3 maalmood madmadowgii tirshadu ka baxaya waxaad arkaysaa qofka wixii lagaga sheekeeyay wax ka jira male waxa ay ugu dhacday idinkana idinku dhacday oo hubaa qof lagaga sheekeeyay oo dan aqoonin oo iska nacday stereotypes ay dhacday laakiin qofkii markaad barato oo la sheekaysato qof aan kuluba taqaana noqonayo oo qiimo badan marka arrimaha la mataqaana la dhiiriga dialogue u jira wada hadal laakiin positive oo constructive oo la ixtiraamayo fikradaha kala gedisan ummadda waxay ka dhigaan rich dhinaca diinta ha ahaato dhinaca kale hada diinta ka soo qaad oo hadda maanta dhib badan inaga haysto a'imadii afarta ahaa Hanbali Maliki Shafi'i whatever iyo kuwii kale inta la aqooninba shuyuukh way soo ahaayeen diinta isbari jireen wayna is ixtiraami jireen marka different views ummadda waxay ka dhigtaa rich haddii laakiin aan hal fikrad wada qaadan oo dictator aan noqonaynaa ka bacdina luquntaan mataqaana iska goynayna marka in la ixtiraamo fikradaha kala gedisanna waa muhiim ugu dambeyn Somali common identity in la sameeyo community spirit community solidarity ummad isku duuban isqaadata iscaawisa inuu abuurno dareenkaas hadda maanta wuxuu u muuqdaa inuu sii daciifayo laakiin waa la soo nooleeyo recovery hadda wuu jiraa laakiin dagaalka dhib badan ayuu u geystay programkan ka bilaabnay markii ugu horeysay waxaan ka bilaabnay meelaha Muqdisho ayaan ka bilaabnay last year-kii haddana waxaan tagnay sanadkii within the Somali ethnic groups in Horn Africa meelaha aan ka fudinay okay when waxaan sidaan hore idinkugu sheegnay
niyadda ayay nooga jirtay Yusuf 1990 sidoo meelo kale ku sheegay markuu dagaalkii dhacay ay programkan ay maskaxdiisa soo gashay 2009 ayaan markaan isbadanay arrintan ka hadalnay sideen ummaddeena ugu istaagnaa sideen nabadda naga maqan aan u helnaa 2010 way soo socotay markaan tagay Australia programo badan ayaan ka qayb galnay haddana waxaan go'aansanay inaan imaano wadankii meelaha ka fulinayna waa waxaan ka fulinayna waa meelaha Soomaalida ay joogto haddaad fiirsaan dhinac kasta ahaato corner to corner inta ummadda Soomaalida afka Soomaaliga ku hadasho kelinka shanaad ha noqdo ilaa iyo maxaa la dhahay diaspora so far maxaan soo qabanay muqdisho ayaan tagnay sanadkii hore 2015 27 arday ayaan waxaan soo siinay trainingkan waxaan sameynay documentary intiina qaarkood inay arkeen laga yaabo haddaydan arkin waqtiga dunoo saamaxa documentary ayaan daawan doonaa waxaan tagnay Hargeysa sanadkii hadda ahaa 2016 16 arday ayaa ka soo qayb gashay iyagana January 2016 oo isugu jira gabdho iyo wiilal ka Muqdisho University isagana sidoo kale 27 waxay ahaayeen gabdho iyo wiilal arday jaamacad iyo saddex soddon ilaa iyo wixii ka yar ay tahay East Africa University soddon arday ayaa iyagana ka soo siinay February 2016 Muqdisho University Boosaaso faraceeda Boosaaso ayadana 29 arday ayaan ka siinay Boosaaso counselors dowladda hoose ayagana ilaa iyo 10 qof ayaa ayagana naga codsadeen oo training aan ka bixinay Muqdisho ayaan ku soo noqonay waxaan siinay advance groupkii hore oo 29 qof ahaa ayaa waxay kulligood way wada imaan waayeen sababo dartood qaar way kuseen inay lahaayeen qaar magaalada inaysan joogin ayaa laga yaabaa 20 qof ayaa ka soo qayb gashay ayagana waxaan siinay advance training intaasi waxaa la socotay sanadkii hore markaan ka soo noqonay Muqdisho Melbourne and Brisbane and Sydney ayaan event ka sameynay oo aan la wadaagayno community-ga wixii aan ka soo qabanay Muqdisho iyo waxaan sameynay oo kale engaging with the Somali Women's Group waxaa jira Somali Women Global Network ay yiraahdaan umahaatul qari ilaa 2,000 qof isugu soo gasho marka ayagana programkii waa u bandhignay ani Yusuf taas iyada laftigeeda maxay ka mid ahayd waxyaabihii aan sanadkii hadda overall aan soo qabanay markaan tagnay Muqdisho sanadkii hore 27 qof aan training ka siinay waxaan isla garanay maadaama 5 maalmood uu ahaa training ka inaan certificate siino أنا كنا هنسأل كان تدري لكن وأنا حين certificate sidoo kale University of Hargeysa oo bixiyay waqti ay ka soo qayb galeen ayagana certificate-ki aan guddoonsiinay halkan ay ka muuqataa Muqdisho University faraceeda Boosaaso ayagana ka soo qayb galeen 30 qof shahaadooyinkii aan siinay East Africa University Boosaaso ayagana 30 qof ayaa ka soo qayb galay shahaadooyinkii ayagana qaateen okay isku darkooda waxay noqdeen ilaa iyo 103 inta hadda training aan bixinay okay هذا الكارا project maxay waxaan hadda gacanta ku haynaa waxaan soo qabanay muddo 9 bilood gudahooda ayaan soo qabanay intaas dulbatay oo kaliya hadda waxaan ku haynaa iminka maktabad khaasa specialist library inaan samayno oo arrimaha nabadda buugaagta laga baray artikalada wixii masaadira ama resource inaan u aruurino website oo journals link inaan samayno meel oo noqoto reference nabadda Soomaaliyeed oo cid kasta ummadda tankan ay higsadaan ay macluumaad soo raadsadaan dadkii rabo ummadda inay dhinaca nabadda ka soo kobciyaan 6 bilood program ah yaanu ardayda mataqaana gelinay ardayda aan soo siinay training-ka team kastaba 303 arday Hargeysa University bariga Afrika jaamacadda bariga Afrika Muqdisho faraceeda Boosaaso iyo middan ku taala Muqdisho Xamar kuwii la arkaba team baan isugu xirray marka 6 bilood barnaamijkooda in ayagu sii wataan annaguna aanu mentoring iyo mataqaana supervision ama ishraaf aanu provide garayno aan dusha mataqaana kala soconno magacyo la baxeen kuwii Hargeysa waxay la baxeen nabad iyo naruuro gabar la yiraahdo Sahra Samawada ya gudoomiye u ah kuwa Muqdisho waxay la baxeen urur la yiraahdo qoyska nabadda
kuwa bariga Afrika sidoo kale iyo Muqdisho farceeda dhinaca kale marka 6 bilood inaanu fiirino oo aan mataqaanaa la soconana qorshe inoo tahay waxaa kaloo qorshanoo ah haday duruufta loo saamaxdo oo aan helo waxna fandi gareeya 103daas inaanu hal meel isugu keeno ama Garowe ha noqoto ama Hargeysa ha noqoto meeshii duruufta iyo nabadgelyada ay saamixin inay ayagu isbartaan jiilalka soo socda ama kuwa ka dambeeya siin doonana ayagu ay gacanta ku hayaan marka ilaa wixii movement ama dhaqdhaqaaq noocaas oo nabadda oo la yaba taqaana in uu noqdo niyadan ayna hadii alla uga taqaana idino waxaanu niyada ku haynaa inaan samayno urur yana oran institute ama college wax mataqaana u dhigma oo arrimahaas oo dhan asagu habeeyo oo tusha mataqaana kala socda inaan launch garayno maybe waxa laga yaabaa sanadkan aakhirkiisa ama soo socda macluumaadkan hadda aruurinaa kaana niyadan ku haynaa inaanu dhisno dhulna laga siiyo xamar magaalada la yiraahdo Helsinki Finland yaan kula kulmay bishii August shirkii cilmi baarista Soomaaliyeed baan tagay marka nin malaaq ah traditional leader ama ugaas waxaan rabtay ama boqor ama whatever yaan la kulmay marka wuxuu dhul baa dhisay 4 boosa barnaamijka waan la dhacay marka wuxuu dhulka dhista dhulkii baan aniga Khadija soo aragnay way ka hor marka waxaan rabnaa dhulka inaanu dhisno healing mataqaana site meel oo dadka lagu daweeyo waxaan ka wadaa dawada ma aha jirka mid qalbiga iyo dareenka iyo wax la yiraahdo iscafin iyo ummadda inay soo noqoto damiirkeeda iyo macnawiyaadkeedii iyo dhinaca mataqaana nabadda waxaa kaloo noo qorshay sanadkan inaanu Malaysia barnaamijkan aanu dadka u qeexno u bandhigno ardayda Soomaalida ku nool Malaysia UK Ingiriiska iyo mataqaana North America inaanu ka taariifinana niyadan mataqaana ku haynaa marka sawirkani waa ujeedaan waa malaaqi iyo aniga ogada taagan dhulkii la siiyay baan soo sawiray marka dhulku bad uu la haystaa badii wataas malaaqi dhulka la siiyay walaalkii dhulka la siiyay wuxuu joogaa Finland Ismaaciil baa la yiraahdaa laakiin walaalkii oo la yiraahdo Xuseen oo wakiil uga aan wadaykii baan noo geeyay marka qamiiska qaba waa engineer wana raacay soo dhulka u soo qiimeeyo 4 boos way dhulku wuxuu yiri waxaad u baahan tihiin hadii aad rabtaan meel weyn oo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalka laga hagi doono inaad ku darsataan ugu yaraan 4 ama 6 boos oo kale si mashaariic badan waxaan ugu talagalay meel yani magaalooyinka laga fogeeyo dhalinta laba usbuuc training ay ku soo qaataan ay badda arkaan geedasha arkaan ayagu isbartaan ay mataqaana wada sheekaystaan corruptionka iyo buuqa magaalooyinka laga fogeysay mataqaana ay u soo qabtaan waxaan inaan ku daro oo ahayd arrintan markaan bilaabnay inaan kulno oo Muqdisho aan ku sameynay last year markaan ula noqonay community Melbourne aan u sheegnay inaan markaan soo bixayno waxaan go'aansanay inaan ku soo noqoni doono wadankii oo aan rabno inaan ka fulino Hargeysa iyo Boosaaso mid wanaag ay naga ahayd laakiin wax aan hayna ma laha nolosheena volunteer aan ku soo baxnay gabar yar ayaa noo joogta last year waxaan ka tagnay Nairobi ayadoo 12 bilood dhalan niyadda waan ka jecleen laakiin miiniski maanan haysan markaan community kula noqonay Melbourne aan u yeernay 250 qof aan u sheegnay projectigan inuu noqdo mid ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay so instead of international donation in noqdo mid Soomaali ay leedahay Somali donors marka dadkii joogay Melbourne iyo Sydney iyo Brisbane especially Brisbane iyo Melbourne ayaa $20 $100 noo soo aruuriyeen training kan waxa aan ku soo bixinay hadda oo Hargeysa ku tagnay Boosaaso ku tagnay Muqdisho ku tagnay waxay ahayd deeq-bixiyaasha Soomaaliyeed ayaga ayaa soo fangareeyay maslaxadoodii ayaa halkan ku imaanay lacagtii ay soo bixiyeen intaasna waxaan rabay inaan idin la wadaago si kooban waxaanu Khadija hadda adiga wax yar khibradeeni ama personal experience markii aan Muqdisho markaan ka nimid Melbourne aan ka shanay dawladii hore caadi dareenkaaga soo ahaa ama mid walba meel Hargeysa aan ka fakarin doono markii ugu horeysay aan Muqdisho diyaaradii aan soo raacay oo aan ka tagay Nairobi 20 sano ayaa igu dambeysay Muqdisho oo waxaan ka tagay 1994kii mugdi ah dagaal ka jiro xabado ka dhacayaan oo aan laga sheekeyn karin markaan diyaaradda soo galay horta qalbigayga aad ayuu isu bedelay hawadii markaan arko waan iscelin waaye emotion ayaa noqday maxaa yeelay 20 sano kaliya maanan ka maqnayn waxyaabihii aan maqlaayay laftigooda saameynta igu yeelatay wadamadii aan joogay Ingiriiska China aan tagay Europe aan ku soo wareegay mar walba wax fiican aan arko
niyadda mar walba waxaan ka tabi jiray meeshii aad ka imaatay aa u dhalatay hadday sidan oo kale noqoni lahayd marka tii ama maskaxdayda ku jirta markaan arkay baddii markaa dhulka kor ka soo aragtid baddii quruxda badnayd dareenkayga mid la cabiri kara muusan ahayn waddanka saasoo quruxda badan oo ilaahayna siiyey oo wax walba khayraad ah ku jiro iyo meesha aan ka taaganahay oo qaxooti iyo inkastoo aan cilmi kusoo yeeshay but at the same time waxbaa iga maqnaa marka aragtidii aan arkay farxad weyn ayay ii ahayd markaan kula xiriiriyay dhinaca nabadda markaan kusoo deganay hoteelkii habeenkii ugu horreysay farxadda aan furnay waxaan arkay magaaladii dhan oo wada nal ah runtii farxad ayay ii gelisay inkastoo waxyaabo badan oo waddankii ka burbursan yahay ay jirto laakiin waxyaabaha aan isdhihi karo maxaa markaa ka tagtay 20 sano iyo markaa kusoo noqotay waddankii oo ifaaya wuu burbursanaa obviously laakiin waxyaabaha aan taabani karo oo markaas habeenkaas ay qanciyay waxay ahayd nalkii oo daaran runtii waxyaabo badan oo maskaxdayda ka guuxayana way jirto isleeyahay waddankaagi waa kana intaasaan ka maqnay maxaa u qabani kartaa laakiin mar walba waxaa isku qancinaya waxay ahayd dhalinta aan la wadaagi doono kubcinta nabadda haddii nabad la helo unbaa la ogaani karaa nolosha kor loo qaadi karaa dhismo guryo la heli karaa haddaana maskaxdii iyo haadka la dhisin guri dhismadiisa keliya wax ma noqoni karto okay taas waxay khibradii koobaad oo gabadhii yareed waxaan uga tagnay Nairobi waagaas 18 bilood bay jirtay halkan aan uga tagnay Khadija walaasheedaysan aqoonin fasalka markaan galayno ama subaxii waxaan loo soo diri jiray sawirkeeda afartii habeen hore gabadhu xitaa way seexan weysay oohin Khadija markasta loo soo diray way iska ooyeysay galaaska markaan aadayna aniga aamusin jiray tartiibtaada isbanci noqdeen aan sameynayna sacrifice iyo mataqaana tadxiya marka runtii way nagu adkayd laakiin macna intaa ka weyn baan mataqaana dareemaynay markaan soo laabto safarkii ugu dambeeyay dareenka nagu soo Hargeysa markaan tagnay Hargeysa weligay maana tagin iyo Boosaaso sidoo kale Khadijana sidoo kale maysan tagin marka Hargeysa markaan tagnay dadku aad bay mataqaana airportka waa laga soo dhaweeyay khaasatan Khadija qof dumar ah waxa la boorsada ha qaadin ani baa li waxaan jiray taksiiraha xitaa dumarka aad looga qadariyaa looma ogola mataqaana inay shaqo qabtaan dhinacana waxa weeye negative waa iska yar jiraa oo opportunity-ga fursadaha sida koonfurta u furanta ama furra laakiin haddana advantage-ka haystaan ama faa'iidada waxa weeye in la yiraahdo gabar baa tahay muxtaramad baa tahay hoteelka markaan galayna waa la baari jiray iyada laakiin lama baari jirin socos ah mataqaana la oran jiray iska gala magaalada nabadgelyo ku dareen Hargeysa dhul Soomaaliyeed oo nabadgelyo ku seexan oo ku soo toosay oo ku wareegay for the last 25 years niyada noogama jirin laakiin Hargeysa markaan tagnay waxaanu dareennay inaan hawada dabaalanayno yani nabadda saan ugu raaxaysanayno fursad intaan lacag ka buuxsanay oo kaamirada qaadanay in magaalada ay just runtii dareenka naga tagay kumbataan awgeys habeenimo marka magaaladan iska wareegayno macna dhul Soomaaliyeed oo nabad ah inaad ku wareegto oo ka baqin oo qori lagu waardiyeynay oo jid fresh jirin waxay nagu ahayd runtii elusive very elusive mataqaana idea mataqaana ay laakiin waan soo aragnay waxaan u bognay dadka shacabka degan Hargeysa iyo guud ahaan bilaa boora baan tagnay dareen sense of community dareen waxay leeyihiin umadeed ayagu nabadda inay kansadaan bay aaminsan yihiin waxay nabadan haysanay ku faanayna annaga kansanay koonfur waa in mataqaana ay nagu dayatay oranayaan boorama markaan tagnay dhagax weyn oo guduud ah yaa la tusay oo mataqaana lagu dayray marka dhagax aad u weyn yahay waxaa ku sawiran xisbiga la yiraahdo wadani baa calankiisa ku sawirtay marka xalli dumarkii hore malaha 100 sano ka hor markay dhali waayeen ay ku dul fariisan jireen probably waxyaalo khuraafaad ahaayeen laakiin inuu hadda waa la kiib gareeyay waxaan u aragnay calanka wadani oo guduudka ah oo dadka reer baadiyaha iyo xoolaha raacan ay wataan marka waxaan yiri calankan muxuu yahay hadda anaga marka wadani ma naqoon wali waa xisbiga wadani xisbigaas ay taageeraan waxaan bal beeshaas oo mataqaana aqal Soomaaliga fog hada la geeyo aqal Soomaaliga bana la geeyay waa aqal Soomaali caadiga raraya dadka way xoolaha lahaan jiray ran iyo kabad iyo mataqaana daahi iyo xidhnaa wada leh xoolihii xaradii lagu xareynayay iyo deed oo tisara lagu dayray marka ninkii guriga lahaa oday ah aad u jeedo mataqaana inuu hadda geeri ka yimid iyo xaaskiisii iyo carruurtii baa joogay marka waxaan calankan muxuu yahay markaas wuxuu yahay calankani waa xisbiga wadani marka waxaan asagaan taageersanay marka asagaan u codayn
marka waxaan aad mataqaanaa ula dhacnay dareenka siyaasiga oo yar kobcay markii dhinaca yar koonfurta laga eego kaasna aad baanu ugu bognay waan ka soo tagnay Hargeysa waxaanu aadnay Boosaaso airportka markaan maraynay 3 dumar ayaa midba marna istaajisay ayagoo barnaamijka aanu wadno hataa wada qalabka miidiyaha nin iyo xaaskii wada socda dhaqanka Soomaaliyeed inta badan kuma banaan la yiri marka dadku isku kay ag sawireen waxaan ka wadaa maskaxdoodii baa aad u yar qabatay marka waxa liwaayay aragnaa nin iyo xaaskiisa wada socda waa naadsantii 3 dumar aan weydiisay waxaan aad u la yaabnay waxa ugu badan oo dadka soo jeetay wuxuu ahaa trainingkan siinayay nin iyo xaaskii wada socda bal looga sheekeeyo noloshooda sidee bay tahay سيد نلاش ووضع نورشين سيد ووضع قبطان سيد ورشيسان سيد أريبها قريين يكوا كله تضحوا ووضع قبصتان تاسع عجزنا ونغطي لهن وكا حن هذا قوان سنة ينام خبرة يدا برا هذا كم تقنا لو داعنا بس أسا وحن فارقنا تيجي تقعد سكي هرجيسة ده كم وقت نشوف تيجي هاي بين عتاد دومركا كاميرا ده مكان مجال ده وضع نادي سجى إلى علينا ينحط تصوري كل يكوس ألود بالويدين ماشي وحنا تقنع عالم كان سيب كنا صار تمعد الله يرحمه وعالم كله قصار أنا بس أسوينا وأنا لو يدي كواس موجود في الصومالية هوست لقى أوران anyway لكن ده الصوماليين ما كنت تحب بدن كنتي تدين اللي فهمه يعني سؤال إن خير بوساسو وحنا كسؤال أرجعنا ضد موجي من السياسة عام بيسيجين سواء الدبعات ودي attitude كاسدة ضد horta somehow dhaqan positive leh isku duuban oo waxyaalaha differences-kooda iyo ceebahooda horta aan cid kale ka maqlaynin wad moodo wadana wan xisbiga ka wada tirsan yihiin waxaanu aad ugu bognay sida isugu dayeen inay barnaamijka wadna ay ka faa'iideystaan jaamacadda bariga Afrika markii la maqlayna ku qabanayno Muqdisho University farceedana la soo xiriiray hooyooyina waxay dhahay jaamacadda Boosaaso waa inaad tagtaan Boosaaso University aad jirta dumar la yiraahdo nolol ka ayagana noo yara xidhay barnaamijka waa inaan siisaan deegaanka mataqaana Boosaaso gudoomiyaasha degmooyinka iyo meeyarka waa in la kula xidhay waa inaad gudoomiyaasha fikradeena aad wadaagtaan aqoon isweydaarsi wasiirada mataqaana noo yara dal waxaan la yaabay sida ay isugu dayeen fursadaha waxay u arkaan faa'iido inuu ku jirto si isugu dayeen ay advantage ka qaataan ama faa'iido مقدشة وأنا كنت بتعرينا أنت درين أنت جوبني أنت بدن أما هوتيل كان حبسي كوي راهين أما مثلا بابور ما كنت حجرتي حبسي يعني كوي جرتي وقالوا ده بس فعلا لكن anyway شيء كذا أنا قلت هذه أو جالس في مقدشة فيه لأنه وقتي وقت ها أغرية وحي هذا سوق بني وهذا دوكيومنتري كم دقني هذا من الدوكيومنتري إن شاء الله أنه أتقنا سمينا marka hadda leeyahay xawad la joognaa kulli su'aalaha hadda kalimo aad leedahay waa Cabdalla ku sheegay inta fiiski isku soo dhaweeyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام ولا ليال مركو هره إلهي مهد اسكاله إلهي اسكو كان مركو هره اساقا مهد اسكاله مر لباد وحان أمهد علينا يا لما نها أو قيمها له دكتور يوسف يا خديجة هي تاريخ دميش أي كجلين وذا شقين تأي هوشة أي نو كينين تاسنا ونقوم هد علينا يا مركز الدحاد waxaan u mahadcelinayaa ka qaybgalayaasha ka soo qaybgalay barnaamijkan qiimaha leh oo risaale xambaarsan ummadda oo dhan meel isku ma keeni karo laakiin ummadda inteeda khubarada ah wax gudbinaysa markii meel la isku keeno kaanama adiga ummadii bedeshay ayay la mid tahay sida la yiraahdo al-ummu madrasa hooyada ayada dhan madrasa ma wada aha laakiin waxa la madrasa u dhiganta hadii adiga ayada la diyaariyo waxa la diyaariyay bulshadana la diyaariyay markii la leeyahay haddii ummadda khubaradeedii la diyaariyo oo risaalada ay walaalaheen ay xambaarsan yihiin oo u soo safreen oo waddankay u soo mareen oo haddana inta hadda ay nala joogaan oo ay hamigooda u yahay u socdaan waxa waaye waa risaalo annaga in dusha lanaga saarayo lana dareensiinayo muhiimadda amniga iyo ammaanka inuu aad muhiim u yahay ayay dareemeen maxaa yeelay qofka wuxuu arkayaa
meel nabad ah waxyaalaha aan la yaabay waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah anigoo London jooga ayaa nin darawal ah oo Norway darawal ka ah ayaa noo sheekaynaya waxyaalaha aniga mar kasta maskaxdayda ku soo noqotay ka mid ah waxyaalaha uu noogu sheekay waxaa ka mid ahayd taksiilaan ahaa buu yidhi taksiga meel unbaa laga rejiskarayaa buu yidhi meeshaan ka rejiskaraysana baa la wacay hotel hebel tag qof ka soo wad baa la yidhaha waan baxay hotelkiiaan tagay qof baa ka soo degay buu yidhi qofkii albaab ugama kicin buu yidhi baabuurka ugama degin boorsidiisu watay baabuurkii ayaan gadaala u furay boorsidiisu soo xaraystay gadaalu soo fadhiistay joornaalu akhrisanaya ninkii markuu soo degaya wejigiisa isla markiiba TV-gaan ka arki jiray inuu madaxweyne ahaa mise inuu ra'iisul wasaare ahaa inuu ra'iisul wasaaraha ayaan u badinayaa ra'iisul wasaaraha Finland soo ra'iisul wasaare ma ahay balahayn inuu ahaa labadooda midkoodu ahaa madaxweyne laadamiya markaasi qofkaasi meesha uu iga sheekaynayo xoogaha uu dhitinayo waan madaxweyne ahaa mise ra'iisul wasaare ahaa ninkii nin aan aqaano ahaa buu yidhi isu waa soo baxay ninkii wuu soo fuulay gaariga waan wareystay nin baan kuu malaynayaa bal ka waran markaasuu yaad ii malaynaysaa hebel aan kuu malaynayaa oo madaxweynaha waddankaas waa anigu yidhi maxaa jira ayri sidaan ku heshay wuxuu yidhi ciyaar oo ay ka dhacaysay meeshaan ayaan u imid Norway ayaan fiirsanayay ciyaartaasaan ka helayay waan daawaday waana baxayo yidhi keligiis waaye taksigaan ku qaaday airportkaan geeyey markaasaa lacagta bas waxaa hotelka ku siinaya mise anaa ku siinaya adiga waa yidhi boorsadii soo bixi lacagta u siiyey wuu iska baxay buu yidhi asagoo wax cabsi ah oo muruga ku jirin qofku markuu nin madax ah oo ayadoon la waardeynaynin oo taksiga keligiis iska raacayo oo soo baxayo oo waddankiis ahayn haddana dareen weyn ay ugu abuurtay goorma annaga madaxdeena saa noqon doontaa waan ka fekeray waxyaalaha kaloo igula yaab badnayd anigoo mar haddana Norway joogo ra'iisul wasaarihii waddankaasi Norway ka ah waqtigiisa markaasi dhow yahay shaqadii uu ka soo baxay taksiilo ahaan jiray tagsigii uu soo fadhiistay saacadii oo dawladda u shaqeynaya way soo dhamaatay yiri saacado fiican baan haystaa inaan shaqaystaan raba tagsigii uu fadhiyaa oo waxa waaye dadkii in dadka u soo fuulaan oo shaqaysto raba markaas dadkii soo fiirinayaan markaas ay sawirinayaan adiga miya ay leeyihiin ra'iisul wasaarihii Norway waa dadkaasna madax waaye annagana madaxaan leenahay sidee annagana dadkeeni marka waxaas oo kale markaad aragto walaaladeen waxa hadda gubaayo oo ay la murugsan yihiin nabadda ummadaas ay ku nooshahay ayagoo muslimiin ahayn annagoo muslimiin ah iyo sida aan ku noolnahay iyo madaxdeena siday hadda ay yihiin iska dhaafay caasimadii magaalo madaxdii xabsigan ku jirnay yiri doctor hadda noo sheegay macnaha cabsida dareenka meesha yaala ayaa dareemaysaa adigoo shibil caadi iska ah haddaad madax tahay maxaad u malaynay marka waad ogtihiin taariikhda nabadda nin gaalada madaxdeedii ka mid ahaa ayaa sayidina Umar ibn Khattab soo raadiyay markaasaa magaalada Madiina u imaaday aaway buu yiri Umar xaggu maray suuqaasu maray waxbuu gadanay waa madaxweynihii khaliifatu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam soo u daba socday wuxuu ugu tagay meel banaan oo geed weyn ku yaala hoostiisa soo iska jiif buu soo kor istaagay asoo waxba murug haynin markuu soo kacay buu yiri wuxuu yiri xakamta buu yiri dadkaad xukuntay facadalta buu yiri cadaalad ayaad ku samaysay fanimta waad seextay buu yiri cabsidii oo dhan fanimta buu yiri waxa waaye dadkii waad xukuntay cadaalad baad ku xukuntay ammaan baad heshay murug la'aan baad geed hoostiis jiiftaa buu yiri balka annaga marka waxaa la rabaa inaan sidaas oo kale qof nabadaasi soo arkay oo taariikhda islaamka looga sheekeeyay iyo ummadiisa sida hadda ay tahay ma seexan karo marka amniga inuu aad muhiim u yahay nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiiskii uu yiri man asbaxa minkum aaminan fi sirbi qofkii waaga u bariyo mise uu ahaado meesha uu dadka ula joogo qaraabadiisa ahaadeen waddankiisa ahaado aamin ku ah معاف في جسده جركي سنة عافمات وقبه عنده قوت يومه نور المال ميدنا أو هلايو فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قفك الدنيا أو دن برواقة هيستو
maxaa loogu hormarsiyey aaminan fii sirbi xoolo kastoo haddaad haysato oo aad amni haysanin waxay ku tarayso male fiiri qof kastaba annaga naga mida waxaas ummaddaas rabta annagana waan rabnaa ummaddaasi dad baa gaarsiiyey annagana dadkeena waan gaarsiin karnaa waxaa la yidhaahdaa hal lagu darayaa laba noqota annagoo dhan haddii shaqadan walaaladeen u qumeen oo isoo istaageen nin iyo xaaskiisa guryahooda iska joogi kareen Australia deganaayeen waa iska joogi kareen maxaa soo waday walaasheen hadda markay China nooga sheekeynaysay oo waxa waaye Soomaali markii la soo saaraba waxyaalahaasi meel la isku dhaco la isku dilo waxaas oo dhan hadday ku soo wada baxdo waxaad dareemaysaa waxa waaye xanuun baad dareemaysaa dadkii wax laga sheekeynayo faqri haddii la sheego Soomaaliya la soo qaataa amni dari haddii la sheego Soomaaliya la soo qaataa waxaas oo dhan maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah dhaxdeena anagu baa sabab u ah meel kale la noogu imaaday male marka qof kasta anaga naga mid ah risaaladan inaan xambaarno oo anagana aan dadka gaarsiino waqtigeeni iyo sida waqtigooda ugu bixiyeen waxaan noqonaynaa dad isku duuban oo iswalaashada iskaalmaysta ayaan noqonaynaa ilaahay ha nagu anfaco ayagana ajarkooda allah ha siiyo anagana allah ha nagu anfaco billahi tawfiiq wallahu aclam aad u fiican yahay bulshadana waa anfacaya inuu intaa ka sii batana waa aad u jeclaan lahaa su-aasheedu waxaa waaye doctor Yusuf markasta aan dhaho oo isweydiiyo hadda Soomaalida xaaladeedu markii gudaha la fiiriyo waxaad moodaa inay xoogaa taxasun inay soo ficnaanayso inay dareemayso in la dareemayo ilaa uu siyaadiyo oo xoogaa macnaha maamul dhisidii iyo nidaamkii in hadda lama hayo laakiin xoogaa bilowgii dhinaca in la aado inay dadkii inaad moodo inay hadda guda galeen waxaan mulaaxadeeyey mushkilad ah oo maqaal ka qoray diasporaha dadka ka yimid kulli ma wada aha positive boqolkiiba 60 waxaan la xaqiijiyey inay yihiin dadka hadda mushkiladda ku wada inay yihiin ka imanaya Yurub ka imanaya Mareykan dadkii oo masaakiin u baahan macnaha noloshii iyo wixii iyo nidaam cusub soo arkay meesha inta soo koobiyey uu keeni lahaa dadkii uu nidaamkii iyo kala dambeynta u dhihi lahaa waxaan ka dhigtaan ka taga waxaan aada sidana saxa waxaad moodaa inay meelo badan inay dadka inay qayb ay ka yihiin aad arkayso duminteedii oo kale inay ka qayb qaadanayaan haddii nidaam la raadinayo inay corrupted ay yihiin haddii wax yar loo dhiibo inay fasaad ay yihiin mid iyaga ka mid aan la sheekaysto iyo waxaan waay ay inta u dhacday oo nidaam idinku xagga ka timid ada barnaamijkii xagga ka yimid cagsigeedii ah hadday noqoto tribalism hadday noqoto wax walba isagaaba kaga daran xataa magaaladan hadda Nairobi markaad fiiriso dadkii Soomaaliya joogay dadka dibadda ka yimid fasaadka iyo problemka iyo mushkilada dadka ugu badan wada boqolkiiba 60 waxaa noqonaya dad ka yimid muxuu ahaay qurba ilaa loo bixiyay magac la yidhi diaspora marka dambe hadda la dhaho markii la ismaan loo dhaho kuwa kuwii diasporada ah taas macnaheedu maxaan ka wadaa kulli dadku ma wada xumo laakiin markaa weydiiyo nidhi maxay noqotay arrintan oo rabna inaan hadda isla sheergarayno oo bulshadii mujtamac ahaan in la xalliyo qofkii xagga haddii laga yaabo inuu ku feelgaroobo mujtamacii xagga ma joogi karo halkaan hadduu yimi haddana mushkilad kale marka barnaamijkaas ma istirahdeen xoogaa ma laga niqaasho ma laysini dadkaa bacdamaa u baahan yihiin in lagu sameeyo isbeddel dadkii dibadda aadayna ay tiro badan la arkay iyagoo wixii London uu ku haystay ama Yurub uu ku haystay waxaan ahayn uu meeshii dadkii mujtamacii ka wado waayo waxaan ognahay tirada ugu badan baa ayaa joogta marka haddii dadka oo loo hagaajin lahaa dhinaca fiican runtii isbeddel badan waan keeni lahay laakiin waxaa la ogaadoo la arkay fasaadka ugu badan iyo mushkiladda ugu badanba waay ay u noqdeen baan isleeyahay su-aasha inaan ka doodno oo xoogaa iska weydiinaan ku dhihi lahaa jazaakum allahu khayr waan soo sheegashadii iyo in mataqaanaa laga hadlo macadka la yidhahdo heritage yaa mara sameeyey favor oo dadka diaspora soo laabashadooda iyo remittance wax la yidhahdo lacagaha iyo ay soo dirayaan ka qayb qaadashada dib u dhiska waddanka laakiin wax oo very serious mataqaanaa research ku sameeyey oo gaabka u dhexeeya dadka qurba joogta ah iyo dadka waddankii jooga ma aanan arag marka in that sense wax hadda aan u fikira ma bixin karo oo ma oran karo 1 iyo 2 iyo 3 estimation ma sheegi karo laakiin farqigu inuu jira wax mataqaanaa cad in mataqaanaa is afahmi waa uu jirana way caddahay aan common ahayn laakiin dadka qaarkood dhaqan xumo meel kastaba inuu laga keenina waayo caddahay gudahana way ka jirtaa bannaankana waa laga keeni waa un dadkii wanaag badanna dad baa
ayagana dhinaca kale ka keeni marka sanadkii hore paperkan aan qoray haddaad aqrisaan emotional mataqaana effortka yaroo sameynay oo our journey to Muqdisho Fear and Hope waxaad arkaysaa inaan ku xusnay waxoogaa differenceska u dhexeeya diasporada iyo si very informal ah marka proposal aan rabay inaan diyaariyo research project buu u baahan yahay laakiin weli cid soo dhawaysa maanan arag waxaa arrintaa xal la heli karaa wadamadan reer galbeedka iyo waxa laga yaaba qaar badan oo idinka idin kamid inaad tagteen dadka soo galootiga dadka waddanka research la sameeyaa waxaa la sameeyaa introduction anu waxaan dhahaa dadka diaspora waxay baahan reintegration si xitaa waddankii ula qabsadaan mar kale in loo introduce gareeyo change-ga waddankii ku dhacay sidoo kale dadka localka xafiiska uu qofka la shaqeynaya hadduu minister yahay ama MP ama shaqaale caadi ama manager in la tuso differenceska oo si wanaagsanna loogu fasiro laakiin ma aanan arag wax mataqaana runtii hadal haya ma aanan arag marka waa dareen jira dhinaca nabad haddaan mataqaana la xiriirino exactly haddii is-afahmi waan ama aan is-afgaranayn waxaa weeye waxa xiga waa conflict iyo dhibaato unba haddana xigta perception dad madow iyo kala shakin iyo isnacba abuurmid waxaan kusoo aragnay naloo sheegay qurba joogta qaar kamidi not all of them but many of them hoteelada inta badan degan yihiin annaga we were one of some of them baan nahay because ma aanan fursad u helin dheer eberka ayagaa sheekada isku shubtaa ayagaa iska dhexdheciya sometimes waxyaa laga yaaba inaysan aad u jirin waxyaa laga negative ah marka waxaad arkay somehow dadka grassrootka ayaga waxyaala badan positive ka ah laakiin dadka diasporada ama dawladda u yar shaqeeya oo yar baqaya in la dilo waxoogo bay abuuraan waxay abuuraan their own narrative oo mataqaana saag iyaga dhexdooda hoteeladii ku wareegata oo sheekaysa way jiraan laakiin ma wada qaar badan magaalada ku jiro ganacsi sameeya oo qiimo badanna way jiraan laakiin adu waxaa loo baahan yahay the bottom line is in la sameeyo research in la sameeyo wacyigelin nooca la xiriirta si professional loo address gareeyo laakiin ima muuqato dawladana anagu maana siyaasad la xiriirayn iska ilaalinayna maybe inay ciid arrintaa u istaagtay inay isku daydo هي أنا هذا كنا كنت سمع أنا كده تذكر جودها جوجي تذكر بنانك جوجي سكوا بهنيين أنا قبل سوماليا هاي دايس برضو جوجي وانكو إن بدنا وقتي وسقط هذا نودن كوسم نقدر ما كنت تذكر ودن كجوجي لفت قدينا كعمق وكذيان تذكر ولا له هذه بحي إيصان نقدر ودن كذي كوسم نقدر جعل هذه لا أبورة لكن هذه لا دايس هذه بدك كي ماذا هم بقى أضد بدنا أي شيء إنه دايس برضو كي ماذا أي لفت قدينا إيصان كهذا تذكر هكذا جوجي صار دوين هاي هذا مقدي إيه وحكى لك ووحى أنا من هذا إن هوست كسر اسمه ما دي أمد ما نقطة إلا basic هوست لا كسر اسمه هوست لا كسر بلاو تذكر سومالي ده الشيء جاي حق الجودة حق ما كي تجين باكيج كودوي وتين وحى أنت إنه هو هيستقر كود ولا يستمر دقين دخل كي هدول نقلنا ساعة روت وكر سنة هذين نقلنا هاد ساعة وده حرينا هذين نقلنا هذا قلستنات هذين نقلنا هاد عندك حلقية بين سكول سكول هو كسر برتي وحقولي جاي علينا اسمه دهين ويدي أبيه دارين يسلت الشني محلها إن عروس تعسيت كالجعلي سود وشينا الله تسين marka waxyaabaha inta ka jiro xagga waalidka macnaheedu maaha wixii inta ka jira completely way dhamaadeen misunderstanding wuxuu ka imaan karaa aniga saan u haysto wax dadkii iska dhaadhiciyeen already waxa laga yaabaa hal hadal hadii la sheegay in boqolaal inta loo bedelo halkii hadal uu meel kasta gaaro inta hadda kuwa oo dadka waddanka jooga meesha doonta ha ahaato intay aaminsan yihiin ka badan baa dadka diasporada laftigooda ayagana saas warkiis ugu gudbiyaan oo intaas wax ka sheegaan laakiin sideen waxaan dhan aga imaani karnaa Soomaali baan wada nahay kii dibadda isku dhashay ama soo joogay iyo kii halkan joogay kii Soomaali gudaheeda joogay waa isku wada baahan nahay in kala gacayl isku soo dhawaashay wax qabsasho in laga fikiro waxyaabahan yar yar ka isku haysanay intaan in lawno bal aan ka fikirno midaas mid ka weyneyd oo ahayd sideen meel ku gaarnaa horumar u gaarnaa هي أنا هذا وخليفة عبد العمر وقدومي كحيان قبل تجا حاضر كا وحرب وجهرين أنا ومهد عليو دكتور يوسف دكتور رئيسة خديجة أما محل لما أنا اسقطت ونستاجع ريم الصومالي لما ودنقول هذا ما تودي رجلنا وأنا أمهد علينا أرنت الصومال لما ده يستاجي waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo arrimahan ay u istaageen inay ka mara dhaliyaan Soomaalida waxaan ku naqaanaa markuu ugu horeyso la soo dhaweynaa emotion wax la yiraahdo
laabla kacan ku shaqeeya sidaad ka warhaysaan Soomaaliya oo dhalatayna kaga shaqeynaayo waan idin soo dhaweyn oo maaragtay laabla kaca marka dambe waxaa suurtagal ah in leedin caajisiyo oo hiil iyo hoo aa la yidhi Soomaaliya hiil iyo hoo dadka waxaa la rabaa in laga helo hiil iyo hoo waxaa laga yaabaa inaad naga weydaan labadiba dalkaad noogu timaadaan hiil iyo hoo midna aad naga weydaan hiilada waa midda niyadda ah niyad dhisidda ah garab istaagga ah hore u socda ah hoona waa midda fundraisingka aad sheegteen ee ka bilaabatay Australia Soomaalida joogtay ka bilaabeen oo ay ku dhiirigeliyeen waxaan rabaa marka inaadan ka caajisin barnaamijkan oo aad hore u sii wadaan insha Allah culayska walba waa maraysaan dadkuna maaragtay markay rabaan change inay sameeyaan wax inay bedelaan culays badan iyo dhibaato badan waa maraysaa marka waa ku rajo weynahay inaad dhabar adeeg badan muujisaan hadda hal daa haysataan sidaad sheegteen insha Allah waa family planning iyo waxba ku socotaan kolley dad educators aatiin ilaahay idin garab galo hawl badan oo idin taalaay hore u socda inaan laga caajisin waxaan rabaa arrinta fundraisingka inaan talo ku darsado meel walba oo aad tagtaan oo Soomaali joogto dad niyad wanaagsan aad buux lacagna haysto Nairobi aad joogtaan millionaires aad joogaan Soomaaliya middle class Soomaali oo badan aad joogaan oo level dhaxal marka kaliya dibadaha ha target gareynina dibadaha maxaa la yiraahdaa diinayaan u jeedin iyo dadka $20 culayska ku tahay iyo $50 lacag dad haystaa joogo qurbahan kale iyo dalka intaba marka arrintaas balaariya oo Nairobi waa qaladeeda ka bilaaba insha Allah cilada qurba joogta lagu sheegay qurba joogta waa dad aan lahayn dhibaato iyo wanaag ma jiro dunida aniga qurba joogta ka mid ahaa 4 sano dalka maaragtay ka soo maqanahay qurba 2002 ayaan ka tagay Ingiriiska China oo doctoreysada ay sheegtaan muddo ka shaqaystay arrinta dhibaatada ay ka muujiso waa arrin sax ah waxyaabaha ay ugu dhaliyay inaan dalka soo aado oo aan shaqeeyo oo gobolkii iyo tuuladii aan ka soo jeeday u istaago ayay ka mid ahayd maaragtay in nin Chinese ah oo aan ilaahay aqoonin oo reer baadiya waliba maxaa la dad oo cilmi bartay ka hadlaysaa mid reer baadiya Soomaali waxa waaye waxa aragti kale ka haystaan in Soomaali tahay marka waxaan rajaynaynaa marka qurba joogta si xun aan loo wada arkin wanaagooda iyo xumaantooda wataan annagoo aan dhaqaale ku haysanin ayaan dalka joognaa ugu dhabar adeegaynaa insha Allah inaan isbedel ka sameeyo casuumaadda waxaan rabaa inaan casuumaad idin fidiyo gobolka Hiiraan gobollada kale idin harayna taga gobolka Hiiraan imaada insha Allah wareegiina kale markaad Soomaaliya timaadaan make sure inaad Hiiraan soo gaartaan waa idinku soo dhaweyn doonaa dadna waad ka tababari doontaan 2 jaamacadood oo ku yaalo waa idin soo dhaweynana insha Allah marka aad iyo aad idinku mahadcelinayaa arrimo la yaab lana waa inta soo bandhigteen garabkiina insha Allah assalaamu calaykum waxaad sanad gudoomiye kasta waxa qabada I agree with you from the start of the work inay ka bilaabaan refugee campaign marka adaan u baraarujisay ajrigeeda waa leedahay man dalla ala khayrin falahu mithlu ajr fa'ili qofkii wanaag sheega uu soconaya qofka aad u sheegtay haduu qatiya doonta marka ajrigeedina waa leedahay marka insha Allah anaguna way good in mind insha Allah ayay wax ku washana ma qabantiya haya ولكن حاجة على الوضع في الموضوع لكن محمد إنجليش كلية كوريين تذكر الله ليس المد إنجليش good question حقيقة أمدينا قرب جوج بان هاي ودن جوج بان هاي واحد سان لنا وقديش مركان تقني وحالين لو ودي وحاكمية مركا هذا لسان some kind of English كل حدا ثاني كسارة قفوا علمي مثلا linguistic بدي كجرا علمي اللغة هذه ما ماستر اسمه degree English ماستر وحها مثلا لغتها marka luqad barata somehow waxa la tadakhul luqawi isbakari kartid somehow waad ku dhaxdari weerar kale ama adigoo is ogeyn marka I agree with you
Soomaaliga waan ku hadalaa ani baan gabiya ayaana ku gaban laakiin waxaa jirta way xaqiiqada tahay macaanka markay noqoto qoraalka af Soomaaliga aniga private school ma ku qaatay dugsi dhexe iyo sare waxaan ku qaatay Carabi then degree-gayga wuxuu ahaa Arabic as well in Sudan masterkayga koobaad wuxuu ahaa Arabic and then my second master's in my PhD waxay ahayd mataqaana English marka in that sense markay timaado luqada cilmiga ah oo markaad wax qorayso de wixii una academic ahaan aad ku soo baratay in baad wax ku qori marka runtii waa dhibaato in haysata waxaan aad ugu bogay ninkan la yiraahdo Nuuridiin Faarax oo qoraaga markuu hadlayo afkiisa wuxuu ka ilaaliyaa kelimo ama eray aan ahayn Soomaali luqad qalaad iska ilaaliyaa marka waa ninku dayasho mudan dhinacyo badan markii la eego marka waan isku dayaynaa dadku waa Soomaali laakiin Soomaalidii maanta luqada badan bay mataqaana ku hadlaan waxaasna dhaqankeena qani bay ka dhigi faqiir kama dhigayaan faa'iido badan bay inoo keenay luqadaha kale Soomaalina waa suggestion soo jeedisay inaan ku tarjano waxa aad iyo aad loogu baahan yahay weeye marka luqad kasta inaan adeegsano si cilmigeena meel badan ugu gaaro luqadaha kala gedsanna inaynu aragno faa'iido had iyo jeer waa muhiim inaanu aragno faa'iido dhalinta Muqdisho waxaan kala hadalay caruurta qurbaha ka timaada aan geeska la gelin anigu research-kayga qurbaha aad u la xiriiray waxaan arkay dhalinta markii la soo celiyay ama dhaqankii ama diinta ama af Soomaaliga bartaan waxa ugu horeeya lagu caayo af Soomaali aysan aqoonin qurbay ku dhasheen English ku hadlaan ama luqadii wadamadaas marka kisto waa geeska la geliyaa ama waa la yar caaya ama la yar canaanta marka waxyaalaha ka sheekeeyaa waxaa kamid ah in la yiraahdo Ozi ama kadata wadanka uu ka yimid loo saariyo marka waa muhiim af Soomaaliga in la xoojiyo in la soo dhiso u baahan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay in institute mataqaana u istaaga iyo dawlad shaqo dawladeed way waa runtaada waa mahadsan tahay qoraalka hadda waxaan ugu talagalnay markii soo horeysay waan soo qaadnay inaan idinla wadaagno laakiin insha Allah waa isku dayaynaa isagana inaan af Soomaali loo dhigto sida Yusuf ka dhawaajiyay ana waxaan aaminsanahay luqadaha kala gedisan inay maskaxda ay kordhiso ay kobciso ilmaha hadda badankooda wadamada westernka jooga waxaa aad iyo aad loogu dhiirigeliyay afka luqadda hooyadooda inay ku hadlaan iyo luqadaha kale maxaa yeelay ilaa ilmaha 7 sano uu ka gaarayo wuxuu aad maskaxdiisa u furan tahay hadduu luqado kala bartana ay waxbarashadiisa xataa neuroscience ay sheegeen in waxbarashadiisa hore u kacayso marka dadka xataa inta jooga luqadaha kale faa'iido u tahay inay bartaan kuwa Soomaaliya joogo afkii hooyo in la xoojiyo oo la haysto at the same time luqadaha kale in la barto wax aad u fiican aan kulliba aragti ahaantii website ma leedihiin lagala socdo hawlihiina iyo waxqabadkiina ama meel talooyin kale intu siiyo good question website mataqaana ma aan mataqaana ahayn macluumaadka mataqaana basiga waa intan waxaan diiwaan gelin doonaa mataqaana institute magac Soomaali baan raadinaynaa sida nabad iyo naruuro ama qofkii magac kale hayo waxa la xiriira kobcinta nabadda oo kale ama qoyska nabadda waxaan raadinaa mataqaana erayo ku habboon waxaan diiwaan gelinay urur ka jiro Australia oo la yiraahdo Somali Youth Peace Project oo ambareelada yar ay ku taalo hadaafta iyo waxaan qabanaynay iyo saan wax u fulinayna mataqaana missionka documentary-ga waan sameynay marka email waa ku yaala Somali Youth mataqaana TPF Peace Project oo la soo gaabiyay waana laga soo xiriiri karaa laakiin website iyo urur professional waxaan isku daynaa insha Allah sanadkan aakhirkiisa ama ka dambe annaga waxaan qabanaynaa dadku ay barteen dhawaan members wadaya oo badan ay jiraan 103 arday oo soo tababaray oo nagu xiran ay jiraan idinka oo kale hadda supporters committee inaanu wixii si formal ah ugu dhawaaqno marka waxaan isku dayaynaa inuusan magac naga noqon ficilkiisa iyo shaqadiisa inay badato marka runtii waa su'aal aad iyo aad mataqaana u qiimo badan dad badanna wayna weydiiyeen maskaxdana waan kuxinaa هي واحد كله سؤال. برنامجكنا الوطني يقول بدن ما جعلنا أنا حقيقة وطننا نجدنا بدنا نقض المنطقة كبحث يعني واحد هذا اللي يرادن برارجينا وكان اللي يراد بقصة جدا كويس وحين يعني خلطت لنا هنا قدرتان فميلك يعني والدينته إني برارجين تقدر لأنه حيالي فمي عنو كانوا قصة بحا كويس كويس كوحي قصة تربيين وميل كستا لمري
xaqiiqatan markaan ilmaha naga madaarista ay ka soo baxaan ama iskuullada oo kale isagoo inay markuu ku imaado cunugkii maxaa kugu dhacay inan baa dileen haddaad ka soo oyso waan ku qaraacan soo qaraac waan ku tarbiyeyna marka waxa waaye cunugan wuxuu ku tarbiyoobayaa aarso annagoo dhan marka waxaan wada taaganahay aarso marka waan ka aarsanaa qof kasta wax noo geey waan ka aarsanaynaa cafis ma naqaano aslanba marka inaan waalidiintii aan xoogga saarno sidii ay xataa ilmihii ay cafiska u baraan inay waxaan ka tanaasuli karaan fikirkooda inay ka tegi karaan oo kan kale walaalkood qaadan karaan yani waxyaalo badan inaan kala hadalno oo waalidiinta xataa la saaro xoogga la saaro laanna waalidiinta ayaa waxay tahay asalka cunuga ka soo farxma muhiimsan tahay waxaa ka dhawaajisay arrin aad agteeda igu weyn maxaa yeelay parentingka aad baa aniga u aaminsanahay waxyar ayaa idin siinaya tusaale markaan gabadheena yar uurka ay ku jirtay bug waxaa akhriyay what to expect when you expecting waxa aad rajaynaysid marka adiga aad wax filaysid wuxuu ka bilaabanayaa intuu qofka uusan uurka gelin ka hor caafimaadka qofka in la jagareeyo aabaha hooyada vitaminiska u baahan yihiin kabacdi ilmihii markuu caloosha galo marxalad kasta uu maraayo ilaa iyo markuu dhasho haddaan tusaaleedin ka siiyo Australia kale meeshaan ku dhalay gabadhayda training aan la siiyay ani Yusuf oo 7 weeks soconaya sida ilmahaas loo xanaaneyni lahaa markii aan dhameeyay gabadhii dhalatay group baan loo sameeyay mothers group waxa maadaama hooyanimada ay ku cusub tahay inaad baratid idinka wada sheekaysataan waa long process ilmaha intuu dhalan baa laga bilaabaa ilaa iyo inta uu ka weynaanayo uu ka baxayo marka anaga waxaasoo dhan maanan haysanin parentingka wax loo baahan yahay waxaan rabnaa projectigeena inaan ku darno sida carruurta loo koriyo waxaad adi aa sheegtay waa run oo kugu raacsanahay qalafsanaanta waalidka looshooda hadda dadkan aan wada eedeynayno madaxda aan leenahay wadankii bay kharibeen markaan reflection sameeyey waxaan oo dhan aan akhriyey ma haystaan ummadeena mise ma haystaan markaas weydiiyey inaan eedeyno maaha waxaan oo dhan aan arkayna wadadaan soo marin in haddana laga sugo inuu beritool isbedel intuu sameeyo waxa dadkaas ay soo wada mareen next minute inaa la dhaho okay dadkan waxa daarada leh intaas gaareen oo wanaagan samaysteen oo ilaa cunug intuu dhalin laga soo fakeray ilaa iyo markuu dhimanayo laftigeeda caring meel la geynayo qofka laftigiisa wuxuu u haysto iska jijabinaynin inaan intaan imagekas qaadana aan dhahno annagana kaasoo kale aan rabnaa markiiba iyadan hoosta laga soo dhisin laftigeeda su-aalo badan baan iska weydiiyaa waa run parenting waa wax aad iyo aad important u ah carruurta saa sheegaysa markuu yaryahay lagu abaabiyey qeyrkaaga iska soo dhici hadda waa tan la wada haysato cidis oo galma laha inay wax isku darsato nin walba fikradiisa wuxuu rabaa ani keligay haddaydan ahayn banaankan tegayaa ma rabo waynu ugu jirtaa insha allah programkeena session dhan aan ku sheegnay inaan parentingka sameyni doono dad aan isjeclayn oo wax isu sheeganaynin ilmahoodii la tashanaynin obviously markay banaanka istaagaan wax lagama filayo inay isla tashtaan oo isjeclaadaan guryihii laguma soo dhalin marka aad aan u qaadin weynina dalka guud ahaan waxaan qabaa 2 faallo iyo 2 su'aal faallada koowaad waxay ku saabsan tahay Muqdisho waxaan akhriyay haddana waan akhriyay safarkiinii ahaa marka already adinkoo Muqdisho aad lidinkaga soo cabsiiyey oo cabsi badan laydin sheego negative badan laydin sheegaa marka fursad aad runtii ku dhex gashaan bulshada meydaan gelin sidii foobiyadii laydin sii geliya awgeed Muqdisho waxaa moodaa xoogaa in cadowgeedu fara badan yahay oo negativekeeda si aada loo sheego dad badan la dagaal ku hayaan marka wax kastoo laydin sheega ha qaadanina magaalada nabada ka jirta aniga Muqdisho degan oo ku noolahay ya marka dambe waxaan rajeynayaa adinkoo xora inaad istiriideeda martaan dadka la kulantaan oo aan waardiyaha iyo waxa tirada badan xoogaa ka baxdaan midda labaad oo ku saabsan qurba joogta waa sax qurba joogta contribution badan waa keenaan marka dadka nooga imaada dadna waa dad contribution noo keena sidii noo kale oo dadka u faa'iideynaya aqoon keena ganacsi keena dhaqaale keena waxtar bulshada u keena dadna waa dad fursad u soo doonta dadkaas dhibaatada ku jira oo inay wax ka helaan wax ka raadsadaan wax ka boobaan raba marka laga hadlayo kuwaas oo opportunity doonka ah laakiin kuwa mar kasta faa'iidada wada aqoonta keenaya dhaqaalaha keenaya waa la soo dhaweynaya iyo kuwa negative-ka la imaada ayagana waa jiraan kuwa negative la imaada oo ugu talagelin laakiin iska bedel marka dadka qurba joogta ee waxtar kale mar walba waa loo baahan yahay dadkuna u baahan yahay dadkuna u baahan yahay marka idinku waxaan filayaa inaad tihiin kuwii loo baahan marka soo dhawaada dilaanahay su-aashan qabo waxay tahay programkan oo nabadda ah Soomaalida waxa moodaa nabaddu waagii horena muhiim bay ku ahayd haddana muhiim ay u tahay suuragal ma tahay in la develop gareeyo oo idinka
idinka maaragta systemkiina course nabadda iskuullada iyo jaamacadaha laga dhigo si dadku ugu soo abaabaan saa sheegteen nabad ya qorshiisana ku jirtaa midda labaad waxa waaye lamaana isqaba oo isla socdo oo dadka hor istaagaya soomaalida dhaqankeeda kamid maahan annaga dumarka guryahay noo joogi jireen waxay noo hayn jireen hal cunug iyo laba cunug ma dhalaa ilmo badan noo dhali jireen marka mishinkiina ma kamid tahay inaad soomaalida bedeshaan oo ha u noqotaan ta koowaad yes documentary-ga qofkii daawada waa kaasaan wax badan ku faahfaahina yes way noogu jirtaa curriculum-ka inaan dawladda kala kaashano waa hawl dawladeed waxyaalo badan oo bulshadu ay qaban karto dawlad looga baahnayna runtii way jiraan waxaanu qabanaynaa waa wax shacabka looga baahan yahay laakiin markii annaga laftiga improvement aan samayno institute-ka aan samayno in aan consultation wasaaradda waxbarashada la samayno marka curriculum primary school-ka lagu dhigo middle school ilaa high school oo as a unit inaan develop garayna niyadaan ku haynaa waxaa kaloo niyada ku haynaa teacher training asna inaan u develop garayna mataqaana guideline ama kind of mataqaana booklet asna training very short ay ku qaataan marka macallinimadka loo diyaarinayo iyo sidoo kale dadka aimada iyo culimada kutubaha diinta ka aqriya masaajidda iyo xitaa kuwa qur-aanka bara indhahana laga duubi jiray marka way soo jiraysa guur culimada si fiican qur-aanka noo soo bareen laakiin haddan ulaa la socon jirtay iyo garaac indhaha la iska xiray iyo marka weeye kale oo positive ah jiro macallinku qur-aanka ugu dhigi karaa isagoo cunugan cabsi ku abuurin مثلا هذه simple haddii uu ciyaarta ka joojiyo oo darbiga usii jeedso uu yidhaahdo wuxuu jecel yahay uu diido markay dad kale fasax yihiin uu ka reebo just weeye kale waxaas waxa kale mas-uuliyad saaro marka waxyaalahan cunfiga ama violencega oo dhan in la minimise gareeyo marka macallimiinta dugsiyadu muhim bay noo yihiin kuwa mataqaanaa kutubaha aqriya muhim bay runtii noo yihiin oo xerta u aqriya wax primary schoolka wax u dhiga iyo cid kastaan u aragna access direct ah inay u leeyihiin bulshada si oo waxbarida tejana inay la xiriiraan runtii muhim bay noo yihiin Okay, su-aasha labaad haddaan ka jawaabo oo haddii xaaskiisa isla socdo bulshadeena ma hubadno wayna soo noqotay arrintaasayto xataa ilaa dad ayna weydiiyaan sidee u nooshihiin qaabkiina muxuu yahay horta waa fursad qaali ayay noo tahay inaan ummadii tusno qaarkood waxay yidhaahdeen jaceylka marka laga sheekeynayo dhalinyarada buuggan ka akrinaa muubiyadana waa ka aragnaa laakiin hadda idinkoo isla socoteen annaga oo tusaalahaana tusteen way ku faraxsanaayeen waxaa aniga aaminsanahay sida shambarka labada gabdhood uu leeyahay ninkii xaaskiisa inay isku baahan yihiin waxyaabo badan oo waxaa jirta yuusuf aan ka kabo waxyaabo badan oo asaga iga kabo ummadina aan la wadaagno marka maxaa ka fiican qofka aad nolosha isla wadaagtaan haddii hool ay idinka dhex marto ummadina aa u gudbinaysaa inaad isla shaqaysaan isagana aad ayuu ugu mahadsan yahay sida aadi hadda aad ka dhawaajisa annaga xaasaskeena guryaha inay joogaan aan jecel laakiin haddaa ogaan lahaydeen faa'iidada ku jirto kulligiin waa wada istaagi lahaydeen midka waxaad i leedahay waa kay makeena aan kala shaqeyno marka waa kolleyba wanaag anisaan u arko runtii aad ay umahadsanyihin doctor khadiija iyo doctor cumar marka waa mahadsantihin idinkana kasoo qayb gasheen intaas ayaa barnaamijka muhiimna jazaakum allah khayr